waagii dilaaciyo duur iyo dharaar baan dawubtaada dhowraa adna iima soo dirin taaraan ku diirsado. Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay Ayaan Xasan Ducaale oo ah gabar 7 sano jir ah oo aragga naafo ka ah taasoo maalmo ka hor codsi u dirtay madaxweyne Saciid Deni si wax looga qabto xaaladeeda nololeed. Waxaan ka codsanayaa inuu marka hore dhakhtar caafimaad geeyo dhakhtarka ugu caalamsan iyo weliba dadka kale ee naafada ee la midka ah kuwaasoo baahiyaha gaarka qaba. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ballan qaaday inuu ka caawin doono Ayaan Xasan Ducaale inay hesho dhakhtar dibadda sidoo loo u dirayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waagii dilaaciyo duur iyo dharaar baan dawubtaada dhowraa adna iima soo dirin taaraan ku diirsado ma degdegin naftaydu waqtigaa durkaayo dhamacay shidaayo dugsiga tacliin baan weli daydayaya adigana dadaaliyo dhawaan kaa sugaaye madaxweyne Deniyow dareenkii wacnaa iyo damqashadii maxaa helay madii soo gurguurtaa dalabkaygi soo sida mise doonistaydii durba waadi lowdo dhan kalaad ku maqan tahay.